إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي زيف الضلال وبأحكام صريحة ارتضاها ذو الجلال فاتبع هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي زيف الضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mahad ilaahay kadib walaalayaal caawa waxaa weeye waxaanu u fadhinaa muxaadaradii aan u ballansanayn la iclaaminayay shalay iyo daraad. muxaadaradaasoo ku saabsanaan doonta insha allahu tacaala duruusu rixlati najdati wa dilaalatuha, duruustii laga faa'iidaysanayay safarkii kaalmada. waad ogsoontihiin dhammaantiin fadiilatu sheekh maxamed cabdi umal iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ka baxay magaalada Nairobi oo u baxay xagga iyo dalkii Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, si ay maaragtay kaalmo u gaarsiiyaan dadkii ku waxyeeloobay fatahaadahana maaragtay wixii muslimiinta laga soo ururiyay ay gaarsiiyaan. marka insha allahu tacaala sheekha iyo wafdigiiba si nabad leh bay kusoo laabteen. sida caadada u ahaan jirtayba, sheekhu markuu safar noocaas oo kala galo oo hawsha guud ee ummadda muslimiinta uu ka shaqeynayo, wuxuu qaban jiray muxaadaro uu kaga hadlayo duruusta laga soo faa'iidaystay safarkaas. muxaadaradana waxay ku saabsanaan doontaa insha allahu tacaala safarkii u dambeeyey ay ku tageen Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, iyo kaalmadii la gaarsiiyey dadka muslimiinta ah iyo maaragtay dhammaan ilaa ay ka soo laabtaan. marka insha allahu tacaala waxaan idinku baaqaynaa dhammaantiin si fiican inaad uga faa'iidaysataan muxaadarada sheekha, si fiican aad u weelaysaan. waxaan kusoo dhaweynayaa fadiilatu sheekh, falyatafadal mashkuuran maajuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يوم أسكال تبارك وتعالى كلن كان عاوين وصورة قليل بدون مقدمات. سيدا وشيغي الأخ الشيخ عبد الحليم عاوة oo ay taariikhda hijriga tahay bisha Rabiic Thani kowgeeda 1440 oo waafaqsan 28 bisha November 2019. waxaan fadhinaa masaajidka Sigiiska Abubakar Siddiq. waxaan u ballansanahay muxaadarada ciwaankeeda la sheegay duruusu rixlati najda wa dilaalatuha, duruusta laga faa'iidaysanayo safarkii gurmadka iyo tusmooyinka waxyaalaha rixladaasi laga faa'iidaystay ama ay ku tusayso. insha Allah tacaala waxaan ku soo koobi doonaa warbixin yar oo kooban iyo fawaa'ida ama dilaalaadka ay rixladu lahayd
waxaan kaga daynaynaa culimmadeennii hore waxaa dhaqan u ahaan jirtay in badan oo ka mid ah inay qoraan raxalaadkooda safarraday galaan halahay la kulmaan waxa laga faa'iidaysanayo inay qoraan ayaa culimmada in badan daabi u ahaa marka taasaan kaga dayanaynaa waxaynu wada ogeyn magaalada Nairobi markayna soo gaadhay fatahaadihii ku dhuftay gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo meelo ka mid ah dalka Soomaaliya oo aan warbaahinta ka maqalay oo inagii gurmanay dadaalka badan bixinay masaajida suuqyada muxuu ahay goobaha caamka jidadka dhalinyaradii dumarkii ganacsatadii culimadii looma kala hadhin dadaalkaas aynu wada dadaalay ilaahay fadligii waxaa ka soo baxay inay noo soo ururtay lacag 300,000 oo dollar ah hayr baa dheeraa wax yaro dibadaha ka yimidna way ku jireen haddii la fadhiistay oo ganacsatadii iyo culimadii la wada fadhiistay waxaa laga wada hadlay lacagtan ma dirnaa mise inaga qaadno labada ra'yiba way jireen waxaa la isla gartay oo la qaatay go'aan ah inaan qaadno oo meeshii ku sinno 7 ruux waxaan ku baxnay 6 ruux oo ganacsato ah iyo anigoo la socda lacagtii baan qaadnay طبعا ما أنا حبارساني لكن شركتها المرينة حوالده waxaa kaloo isku qabanay motos baan u aadnaa beledweyne mise caasimadan sii marnaa Muqdisho waxa la isla qaatimay caasimadan sii marno guddi waxaa jira qaran oo ganacsato iyo culimo isku jira oo loo sameeyay maareynta musaa'ibta dabiiciga ama fatahaadaha bale marka inaan sii marno oo guddigaas ka sii warqaadanno wixii tashiyeesi sii dhaafsanno macluumaad ka helo sidaasaan markii dambe qaadanay saasaan magaalada Muqdisho u aadnay guddigii iyo culimada hay'adda culimada Soomaaliyeed culimo ka socoto isla guddiga ka tirsan iyo mas'uuliin dawladda ka mid ah ayaa nagu soo dhaweeyay airportka kadibna waa nala kaxeeyay markaan hotelkii tagnay kadibna waxaan fadhi markiiba wada qaadanay hay'adda aan idin sheegayo u xil saarnaa fatahaadaha iyo musaa'ibta iyo sidii looga qaban lahaa iyo culimadii ku jirtay ayaanu la fadhiisanay macluumaad bayna siiyeen dalka iyo meelaha ugu dhibka badan ee dhibaatadu gaadhay waan wada tashanay waxayna siiyeen macluumaad dhahaysa inta badan meelaha waxba la gaarsiiyay cuntooyin waa la gaarsiiyay laakiin hadda waxaa mudnaanta leh biyahan dhowrkii sano mar soo fatahay wabiga in xal rasmi loo helo sidaas daraadeed waxaan ku talinaynaa lacagtan aad wadaan iyo tukalo la hayo in loo dhigo xal rasmi sidii looga gaari lahaa biyahan kolba dhowrkii sanaba fatahaadda sameynaya wabiga wax laga qabto anaga waxaan noo go'onayd markaan tagno meesha aan u soconno wixii nooga soo baxay inaan ku go'aan qaadano isla maalinkaan magaalada tagnay habeenkeedii ballan hore ma jirin madaxweynahan la kulanay asagana macluumaad baan isdhaafsanay waas warsanay subaxdii axadda ayaan baxnay oo magaalada beledweyne u baxnay halkaa waxaa ka dhisan sidoo kale guddi isugu jirta ganacsato iyo culimo guddigii ayaan na soo dhaweeyay iyagaan raacnay guddigii baan maalinkaas iyo maalinkii dambaba wada fadhiyo la lahay 3 fadhi baan la qaadanay fadhiga ugu horeeya wuxuu ahaa bal inaan macluumaad ka helo waxay ka kooban yihiin siday u shaqeeyaan baahida jirtay iyo siday u kala tahay iyo meelaha daran iyo dadka say wax u gaadheen macluumaad inaan ka helo
markaan macluumaadkii ka helay fadhi dambaan haddana u ballanay oo su'aalihii noo soo baxay aan weydiinay su'aalo badan oo aan tabaynay ayaan warsannay fadhiga labaad. fadhigii saddexaad waxaan la yeelanay annagoo marka go'aan qaadanay. go'aanka qaadanayna wuxuu ahaa meeshii iyo qaabkii ammaanada aan wadno aan ku wajihi lahayn ama aan ku hagaajin lahayn. warbixintoodii waxaan ka helay horta guddigani inay yihiin guddi isku dhafan 22 xubnood oo guddi caam ah iyo 9 xubnood oo guddi fulin ah. dadkaasi waa ganacsato iyo culimo isku jiraan. qabaa'isha deegaankuna inta badan way ku jiraan, xubno matalaya ku jiraan. shaqo aad u badanna way qabteen, dadaal badan, dad aan seexanaynin, shaqooyinkoodii ka tegay, dadaal badan haya. waxaa hormuud u ahaa shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ragga u jooga meesha sida hormuud oo kale, dahabshiil, shirkadahaasi mumثiliintooda meesha u joogay ayaa arinta maamulkeeda odayaalka ah. طبعا waad garan kartaan ruux gaajaysan wax looma dhiibto Soomaa ruux gaajaysan dad wax u dhiibato hada shaydaanka wax ku qaadi kara moogta. halkaasi marka ilaahay fadligii warbixintooda waxa nooga soo baxay dadaalkay wadaan iyo inay yihiin runtii dad isxilqaamay khayr badanna wada. warbixintayna siiyeen baa waxa nooga soo baxday kow horta biyihii markaasi inta badan way noqdeen oo magaalada waa lagu noqonayay qaybo ka midana waa lagu noqday, laakiin biyihii beledweyne dhaafay inay shabeellada dhexe wabiga tuulooyinkii saarnaa inay go'doomiyeen. yani waxa balcad iyo jawhar iyo wixii ka sokeeyay iyo inay go'doomiyeen. magaalooyinka waaweyn ma laakiin tuulooyinkii dhulka inta badan wabiga hareerihiisa waxaa daga dadka muxuu ahaay dad aad u tabaryar oo beeraley ah oo muxuu ahaay inta badan dadka dibadaha loo jira aan ahay. marka waxay noo sheegeen biyihii halkaa ka tegay uu dhaafay beledweyne inay halkaa hadda ay godoomiyeen roobna ka daayaan. magaalada beledweynena waxoogaa musaacadaad fiican ay soo gaadheen, haba u badnaadeen raashiimo iyo wixii la mid ah. marka waxaan go'aansanay in baahida ugu badan waxa kale noo sheegeen inay jiraan tuulooyin aan la gaadhin waxna la gaadhsiinin aanana la gaadhi karinba adagtaan la gaadho. waxaan go'aansanay baahidii markaan qiyaasnay miisaanay macluumaadkooda wax ku dhisnay waxa ugu badan ee dadku hadda u baahan yihiin inay kaashta. sababtuna waxa weeye ilmihii caanay u baahan yihiin, ruuxii da'da ahaa caanu u baahan yahay. haddii deegaamadii dib loogu noqonayo waxay wax ku hagaajistaan bay u baahan yihiin. raashinkii adkaa waa looga baahi badan yahay. waxaan go'aansanay marka inaan idhaahno lacagtan aan wadno kaash ku bixiya $50 $20 waxay u gaadhaba qoysaska kaash u siiya, laana baahida ayaa markaa sidaa u badnayd. raashimana way jireen, raashimana way soo socdeen walow baahida ba jirtay. lacagtii waa kala qaybinay $120,000 waxaan u dirnay guddi iyagoo kale oo ka dhisnaa shabeellada dhexe. 183,000 waxaanu u dhiibnay guddigii ka dhisnaa magaalada beledweyne. waxaana kula dardaaranay inay xoogga saaraan tuulooyinka aan wali waxba gaadhin. sidii wax lacagta waa la gaadhsiin karaa ayaanu kula dardaaranay. intaasi ayaanu ammaanadii ku gudanay, gacantoodana ku wareejinay. halkaasay gashay marka wixii la idinka ururiyay iyo ammaanadii aan idinka qaadnay sii qaadnay halkaasay gashay. ilaahay ha idinka aqbalo, hana inaga wada aqbalo. intaa kadib magaalada maana ku sii nagaanin. maalinkaan tagnay maalinku xigta labada bari baan joognay. laba kelimo oo midna masaajidka magaalada dhexeeda ah oo caam ahayd iyo hal kulan oo aan ducaada magaalada iyo culimada kutubta akhrida aan la yeeshay ayaa weheliyay. waxaa saddexeeyay casho sharaf ay noo samaysay dowladda muxuu ahaay Hirshabelle. madaxweynaheedii inoo yimid oon habeen la cashayn.
intaasi markay noo dhamaatay waa ka soo noqonnay magaalada Beledweyne waxaan ku soo noqonnay magaalada Muqdisho caasimadda qorshahanagu wuxuu ahaa inaan joogno maalinta talaadada ah iyo arbacada khamiistana aanu safarkanagi soo waliba waxaanu u daahnay wuxuu ahaa guddigii qaranka ee fatahaadaha loo sameeyay ganacsatadii culimada ahaa ayaa markaan sii soconay waxay naga codsadeen soo noqodka waxaan rabnaa inaan qada idiin sameeyno kana tashanno masaa'ibtan soo noqonaysa saan isaga kaashan lahay ayagaan u nagaanay marka barnaamijtanada kuma jirin marnaba la si guud wala si khaasatona inaan magaalada muxaadaraad ka jeediyo la masaajid wala idaacad wala ay shay wala hatta inaan mas'uuliin la kulanno qorshaanaga maahay laakiin waxay ahayd inaan toos soo noqonno subaxdii baanu quraac la sameeynay quraac noo sameeyeen qoladii ganacsatadii iyo guddigaasi subaxdaasi way suursanay waa dhamaysanay barqinkii baan soo kala tagnay ilaahay fadligii isla subaxda lafteeda ayaa waxa la igu yiri chance baa jira aad ku arki karto labadii madaxweyne hore Sheekh Shariif iyo madaxweyne Xasan chance baa jira ma arki kartaa diyaar baan halku waa la kulmay iyagana waa u naseexay waxaan ku yiri wadanka ma xamili karo marxalada hadda uu marayo dadkuna ma xamili karaan hay'adaha qaarkood marka dalka u tura ummadana u tura war murtidiisu inta yahay ayaa ku yiri way soo dhaweeyeen waa maalinka ay madaxweynaha la kulmayaan barqinkeedii way markaa aniga sarkeen laakiin waxay ugu yiraahdeen khaasatan Sheekh Shariif Soomaalidu waxay taqaanaa buuri oo yiraahdeen ninka daciifka bay waanisaa ninka kursiga ku fadhiya Sheekh Umar waani buu waayahay waa ku insha Allah taala wixii iga aad waa u sheeg ani nin kursi ku fadhiya nin kursi ka maqan ma qosayse laakiin naseexa isaar waa u naseexay baa ku wixii tabartayda inta kadib anagoo u diyaarsan inaan soo noqono ayaa ilaahay amarkii waxa dhacday fadhiyada qaar kamid ah culimada la lahayn ayaa waxay naga codsadeen shakhsiyan inaan laba bari sii joogo oo dambe labada bari oo ah Jumcada iyo Khamiista Jumcada inaan masaajidka Isbahaysiga khudba ka jeediyo iyo muxaadara caam ah oo isbartiibada ka dhacda labadaas aan qabanqaabinay waan cudur daarto waxaan ku cudur daartay war hawlo badan baan ka imid kuma talagelin adigu ilaahay amarkii waan waafaqay markii dambe warkii isaga ahaa iyo qorshahay soo jeediyeen ayaa waxa la gaarsiiyay madaxweynaha in la gaarsiiyana looma baahdeen laakiin masaajidka Isbahaysiga dawladda hoostaga isbartiibadana dawladda hoostaga hadduu masaajid khaas ahaan lahaa wadadada joogan baa laga hadli lahaa arintii markii la gaarsiiyay madaxweynuhu waa soo dhaweeyay ragii agaasimayaashiisii qaar kamid u yeeray kadibna mas'uuliyadda qaada buu yiraahdo hawshaas khudbadana muxuu ahaay masaajidka Isbahaysiga ee isbartiibadana hala diyaariyo isla galabnimadii waxa laga iclaamiyay channelka rasmiga ah ee dawladda Xasan TV ayaa laga iclaamiyay muxaadaradii iyo khudbadii labadaba halka markay marayso oo iclaankii baxay ayaa waxa si kada u soo booday wadaad hanjabay oo la xamar Sheekh Umar muxaadara kuma qaban karo maalintii Khamiista ahayd ayaa waxa dhacday aminkii Khamiista soo galisay yimaadeen qolo kamida dawladda madaxdeeda kadibna waxay iga codsadeen muxaadarada waxay ahayd inay dhacdo galabta Jumcada midda oo Isbahaysiga khudbadii way dhacday oo iyada Isbahaysiga khudbadii waa ka jeediyay laakiin muxaadaradii oo ay ahayd inay ka dhacdo isbartiibada ayaa waxay yiraahdeen gabadhii la dilay aaskeedan ku mashquulsanahay noo dibli
war iskaba baajiyaan ku yidhi mushkilo male anugu iska laabto maya lama baajinayno dibdhig goormaad rabtaan axadda galabteeda waayahay baan ku yidhi halkaana dibdhicii labaad baa yimi oo ay ahayd muhiimadiisu sababtiisu ay ahayd aaska gabadha iyo yani isbartiibada amni ahaan labadooda mas-uuliyaadka ma wada qaad kara mid hana loo dibdhigo saas iyaduna ku timi intaa kadib markii meesha waxaa soo galay markaan khudbada jumcada jeedinay oo gabadha janaasadeediina aan ku tukanay ayaa wadaadadii masaajidka u yimaadeen qoladii dariiqooyinkii markii laga baxay janaasadii laga baxay ayay waxay bilaabeen inay tawxiidka nugu rabshaan tawxiid mutaqaana tawxiid la isku rabshaan yani laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah baa rabsho loo isticmaalay marka meeshaasay xadra ku qabsadeen oo lama danaynina waa laysaga gudbay sidaa iyadoo ah oo saas loogu talagashan yahay ayaa wax walba waa amar ilaahay subaxdii sabtida ahayd anoo hurda oo intaan tukanay hurdada ku noqonay ayaa iridda laygu soo garaacay waxaa la yidhi madaxweynaha ku raba aniga sheekh bashiir iyo sheekh cali wajiis baa u tagnay waa la quraacnay madaxweynuhu wuxuu noo sheegay muxaadaradii inay dowladda ka go'an tahay inay sidii u fusho wax alla wixii process iyo ijraa'aad loo baahan yahayna dawladdu way qaadatay laakiin meeshu waa Soomaaliya waana Muqdisho wax kasta dhici kara wax waa iman kara laakiin ma filaynayna wax weyn dhacayaan waxaan idinku yeeray ra'yigiin waxa idin la quman waliba wuxuu yiri wadaadkan aan rabaa inaan ra'yigiisa ku go'aan qaadano maxay kula tahay waxaan ku yiri oo uu sheegay qawaacida shariicada waxa kamida bal qaacidada shariicada dhan ay ku wareegto waxa weeye qaa'idatu jalb al-masalih wa daf' al-mafasid in umada wixii maslaxana loo soo jeedo wixii dhibi mafsado keenayna laga hortago ama la riixo haday maslaxiyo mafsado isqabtaan shariicadu waxay leedahay mafsadada reebideeda iyo dhibka laga hormarinaya maslaxada la raadinayo sidaas daraadeed labayn maynee muxaadarada waa baajinayna dadku muxaadaraadka waa dhageystaan wayahan wax qarsoon baabayar meediyaha la iskala socda muxuu ahaay social media la iskala socda muxaadaraadku dadku way la socdaan cidii danaynaysa meel kasta ka heli karta waxba laazim ah marka muxaadarada waa baajinayna tayib intii wuxuu dhiba dhici karo wuxuu dhib ah intii ihtimaal yarna ha ahaa laakiin hadii wuxuu iman karaya waynu baajinayna waxa ugu yar baan ku yiri suuroobi karaysa wadadadu nin waxay dhigi jireen Soomaalidu nin walba qoyani bi iskama dhowree waxa dhici karta intay soo galaan garoonka inay garoonka dhexdiisa xadra ku qabsadaan sidii masaajidka ku sameeyeen kadibna dadka meesha dhageysanaya inay iyaguna rad ficil sameeyaan ilaa lama control karay waa inta ugu yar dhici karta waa kadibna meesha wax ka yimaadaan waxa dhici karta ciidamadan kor jooge ee dadka muxuu ahaay in isku turtuur inuu dhaco dad wax ku noqdaan ama dad uun dhibaato loo soo gaarsiyo marka wax baahiyo looga baahan yahay in hada muxaadaro dhacaysa dad dib u gaadhay ma jiro arinta go'aankaas ayaan siiyay labadii sheekh way ugu khilaafeen arinta sheekh cali iyo sheekh bashiir madaxweynuhuna ayagu taageeray wuxuu yiri muxaadarada waa wadayna waxa dhimaya ma soconayso waxaan u keeno markii dambe aan ku qanciyay qisadii al-Khaliifatu ar-Rashid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ardaa nimankii kacdoonka sameeyay markay isku wareejiyeen xafiiskiisa iyo gurigu joogay oo idili rabaan saxaabadii nabiguna ay difaaci rabaan khaliifku wuxuu ku yiri aniga sababteeda dhiig muslim u daadan maaye daaya waxay sameynayaan ha sameeyaan saxaabadii meeshii waa ka baxeen khaliifkii waa loo soo galay waana la dilay marka dhiigiisa inuu ku furto inuu soo ruux muslima dib gaadhin midaan hadda ka hadlayna wax weyn ba ma aha aadu markii dambe waa la isla qaatay sidaas
أي محاضرة هرت باقشة ذو السبب واحد أنت كذب مدحونا وكسر تجني مركان كسر بحني كذب وأرنت إسلاق هذا لكن أسلسل أويني إن محاضرة دي التلفزيون كبحث أيوه نقول واحد سيمرتان حفيزك رئيس الوزراء وسيمرني والله فريسني وأنا كمان وشيني أدبو قحم هذا رنتاس السحمة أبويري لكن ظروف أهان مركل قيمة يواس كصورة قل لكن مقالة ومقالة تذكر حيسة مقالة إنه حيران ما مقالة هل روحين ددوجها انشبر ما حضر هذه الدولة الإعلام سنين يدعضيها لكن وحميش نوها يستانو عاسي هوري وقصوا وقصوا تقني انت أنا كتجي وحيس لقاضني دور قضب ككوبات وزارة أوقافتي أرمها الدين تو إني إعلامي صوب حاضر ذي إني ديب لحظي صوب تهذا الرسمي كان إني شيكت أو إنا أنا كتنازلي سيدي بيو إعلاميا قضب كلا بعد وحويان أوديك مقالة ذا دوق مقالة ذا إنه ما ننت أحد قد السمايو أحيان تمقالة ذا كان عصت ذا وكان كرقنك إن قد السمايو قد داسنا أن كقيق الله أيضا سيدي بيقول عليك كل وربعين توكل السعودية قضبك صدحات الإسلاق هذا نوحوها محاضرة دي باقتي إن أنكب تشيدية تلفزيونك هبينك سنين تسوق ليس أيضا أساس يقول عليه أو سيدي لفلي سكة في عن أي تلفزيون وقبح أنت سمرك ووربعين كوبان كدي من صباح دي سنين تايد وصول نقلنا وحي سيدا كدوان ومعلومات ووحن صحصنين معلومات الرسمية من بداية إلى نهاية سيدا سيهاية مهمدو وربحين تاسيون كلية إنا صحيح هيد وحيالها قاركوض وضدك قاركوض إسلادح ورقين وشدد مهم كوحوي محان كفا إذا سنينا سفرتا يسيدا وحود عين إلهي تبارك وتعالى سيدا دبا شيء متشره الله أبو ري وشر كليا متشره شيء كستا إلهي تبارك وتعالى أبو روح نوع النفعي كتيره سفرت أسمرك فايدوين بدن باك صباح فايدوين كصباح وحا كم ذا وكول ويلاديه كرا السجرمت كي أمضوا أي سميس أو ميل كستكي والدجاج والبلغة سجرمتين معنى وين بيسميس جودة يديبت بقى أنا قلت كان عصد ريم قدشوا وتلاوة دي يقول رسالها هنقطة محوها هاي دولتها الصومالي دا كله أما كون نقول محوها يكون هنقطة ودن كجودي هيسا أما جيبوتي هنقطة أما حتى محوها هاي تشيكا هنقطة إيو دولة ديجان كمحوها هنقطة كلي ولا سوق قرمدي تبديه ولا سوق قرمدي أنا السفر كإستجى أن كنت نبيشة وحال طريقة كوكولاني وفدي كالصعود بونتلان وعلماء دي مسؤولين دولة كالصعودية كان عصتها يوصمد السعودان إلهي أمريكي سفر كي لعددي زوبة سفر كي دي مركان أوتكني إسلام مالي بان هذا كوكولان إيربوت هذا الريبونتلان إسلام مالي بان كوكولان إيربوت مساعدة أوب بدن أودن كجوديه سكتي مادنا وحلا دي كراء حاجة سكتي لواتن يكو بابور بيصوررين بابور كلنا ويسيه الرئيس والراشين ريبونتلان لسعانو ضد كالصعدة وكوكولاني محوها هاي سيدو كلا وحان مقالة كوكولاني بلدوين دخاتير بابور داوا كيني مدنا مقالة دشوي أو تشيكي كيم تشيكي لغا صدري ayagana meesha ku kulanay waxa kale oo ku kulanay iyadana wafdi Mareykanka ka yimid oo ayagana musaacado wada waxaan isla ku kulanay wafdi galo Mozambique ka yimid oo ayaguna musaacado wada magaaladan isugu tagnay markaan Muqdisho ku soo noqonay hadana Muqdisho soo noqodkii waxaan ku kulanay wafdi ka socda Uganda oo culimadii hogaaminayso iyo wafdi galo ka socda South Africa ويدنا علماء هو قابلين أيقون بلدوين كسي السعوديين وانا ضامرين
meesha marka waxaa ka soo baxay oo muuqday oo cid walba aragtay Soomaali waxay isu tahay xaqiiqada soo baxday sideedaba dadku waxay isu yihiin waxa la bartaa markay dhibaato timaado markay barwaaqo jirto saaxiibka lama garto ehelkaagana lama barto laakiin markay dhibaato ku haysaa ehelkaaga iyo saaxiibka la bartaa waxa soo baxday Soomaali inay tahay dad walaala dad wadaaga dhalasho dhiig diin dal wax walba wadaaga وبالتالي isu danqada isu gurmada wax isu hura arinta waxay keentay si amali ah duruus farabadan oo laga bixin lahaa war walaalaynu nahay war muxuu ahay dad wada dhashay baynu nahay war dad isku diinaynu nahay war isku dal baynu nahay muhaadaraad farabadan oo laga bixin muhaadaraad farabadan iyo hadal badan ficilka ka xeel dheer marar farabadan الفعال أبلغ من المقال مركنو كلا واحد مركا جسمي كلية هاي ومدن أيا رنتي صباحي وأنا أرن يا لوجو فرحي دتكي لوتشجي يا دمان ومدن مال والبا برنتي لو أرن تايا اللوجو قاضي حد كلية تنميه تي هرن الصدق كله هذه بوصباح وأنا حنسليها هاي وأرمها أباحن إن لسيح وتشيو umada markay dhibaato qabsato musiibo qabsato in loo gurmado waxay keenaysaa inay qulubteedu isku soo dhawaato la walaaloobo yaani wax way xasaasiyadku meesha ka baxaan laana wax way sida uu leeyahay Abu al-Fath al-Busti ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fatalama ista'bada al-insana ihsanu yaani ibn adam ka markaad ihsaan u sameeyso qulubtiisa hananaysa wuxuu ku qabay waa baabaya ihsaanka إنسان كالله سميه قلوبتي سأيوهنتا من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان وكيلها يعني وحو يروحي حول ضدك السياي ضدك ورنبا حقي سأوه صوضا الليحني مالكنا وفتان ابن آدم كواتش عليه سيدة أصدرات النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا إنسان حديثك في صحيح مسلم غير كي يمد ننكي أضيق لها النبي صلى الله عليه وسلم وحو أهان شري ضدك كان أقول نعبه دينتي سنة وحي أهي ديمها مدان أقول نعبه موسى كزولين إنه إسيني أو إسيني أو إسيني أو إسيني إلى أو كان نقضي خلق يومي كان أقول عليه دينتي سنة أي كان نقضي ديمها مدان أقول عليه سلة مركا ودردارا نو هل ليس أقادو ضدك إحسان هالله سميه قارهان مركا مصائبته بعضه سيدا دقن كينو هل حوجيو وحي كينيسا من نمدي ولا النمدي يحوجينيسا إنك دحيسي قضبك كلا أيضنا ماشا كسو بحي وحوي إلهي تبارك وتعالى أمدا وحوه لي وحبضنا إلهي أبو قبط تبارك وتعالى كان عسطة هذا إيه علم هذا ضدك أنت بدن قرمانية وحقبانية جدها كشقينية أسود شيدا أما دبدها وحكا كينية أنت بدن بقولك بالسجاشن وكان عسطية علم واحد ودخاتير عن حدود لهين خاتير عن حدود لهين كان عسطة الصومالي حدود ملها كان عسقود ملك استويال علمدنا حدود ملها ملك استي مرها يعني وضدك وحشة جاية runtiina waxa la dhihi karaa muddadaasi uu dalka Soomaaliyeed burbursana ama ummadda Soomaaliyeed ba dawrka ay ku leeyihiin iyo kaalinta ay ku leeyihiin waa kaalin aan la inkiri karin shirkadka waaweyn khaasatan si gooni ah ay runtii u amaanan yihiin dawrka ay qaateen sida Hormuud iyo Dahabshiil iyo Haas iyo shirkadaha waaweyn Hormuudka ka aha wax qabadka ummadda loo qabtay ama wixii loo geeyay in loo maareeyo oo la gaarsiiyaha noqdo ama wax bixinaha noqoto qodobka xigaa wuxuu yahay oo mudan iyadan inaan tilmaano ummadda waxa soo baxday oo iska muuqata inay ummaddu ay nidaam iyo dawlad u baahan tahay waa daruuro muuqata
ولا ودا تبايا ولا ودا أركا إن دولتي النظام لو باهي لكن مركز ضلك تكتو آد بيكوس وبيحي باهدا الله قبو ومدني إلى دولتي النظام إيش وحي تشيرنا إن لحوتشيو إن لأن النظام الآن مجتمع متشري كرو مامول الآن يا إمارة الآن متشري كرو بني آدم السيمت وضل كدحيو وهولي كدحيسو مصالح عامة وداقية وديغان كدحيو إن وصن لهين كلا دنبين يا مامول يا النظام وصن لهين وواحد سوروبي كريم واحد ساس درادة شريعة إنه سيدي أهمية أسرته واحد كجرانيسا حتى لبر روح أو حكر حيان مامول بيوصل ميس لبر روح سكنوا في صدح الروح لبر روح نينكا يحاس كيس أو جوري بكر حيان يتلديس لما دهين لجمانا آموسين واتسمنتهن لما دهين مامول بالوسمي صوما مركي قلوا البحق ودي يشيد كودا لمري ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف محل قد بسي وللرجال عليهن درجة يقول حق بيلين دمركي انت ايليهن ان لك بالقول هي رجع هل درجة الله دار درجة سمعتها هي ودرجة الضروري قاع وهدي وحلو وداق يبقى كلا الضمبين الاعتمادا الرجال قوامون على النساء هدي اللبو هولي كرد حيث شرعادو اي كلا الدنبيسين وصميسين ما حد ما نيسا امضان او مقالة دقن امضان او دل دقن كما مارنت وكي النبي قانون الله صلى الله عليه وسلم سدح روح او سفر حصميستين امير حصميستين فليؤمروا احدهم متكود امير هكذا ومهمات عابرة هذا مع ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم صدح يهدي بقاران بأمير هيشان هذا ما ليس أمرك أمضنا وهذا نيم يسامرك ذلك تكتو صح ضدكو ودداليان ما قالوا إنك وارسميان وفيضيان كنعسي وحي الإري كروال الإريا لكن مركب إيش هذا وحي كل عيسى وحي الدولة اللي قبها با مقن وحي بالدولة اللي قبها با مقن ما قالوا إنك قاب يقول اسميان ماها قاب صح ماها حضرتك يسافريه مين الله مرمله صوما شدتك متشران نبتقليدي يا أمنيجي يوم يعني كلاهجيدي دتك يا متشران وقالوا إنك وافضيان ساس ترادد باهيدا أي أمدني أقبتو إني الدولة النظام هشو مركب إشارة أي أقول عايز أرين داس مركب حي كنيسة إن جهدك بديجي اللي سجوجيو سيدي نظام حق بدن وجهر كلي لها ضلك وجهر كلها الضمادنا كوكا للنبض قلان مصالح ذودي ضنوه دي عام كهانا أي أصول تكش وحكى لو كنت يسيدو كله أرنتا أيدا مرر فر بدن مصالح ذود عام كوحة بربرينية مد أم عقلير أم الدنيستة أيا وحلقة يابا إنه ديجان دن وفساد كأبورو إنه ضدكي سكول لايو إنه نبت قليل الآن أبورو إنه مشاكل كعيو وهل شخصية أما عقلير أما الدن إيه مصلحات صوت محيطة هاي النظام كي قبل لها مجرو صوما إلا النظام كوحا لو قلت لك ضدك قارب أنت بدن ضدك وهاكسين ضدك تشيدكو ده هايستي سيدا بالنظام سنة حقوق ضد إلى شنة لجنة بتقلي تشيدك هايستاي كواسي أنت بدن نظامكو أنت بدن وحال لو قلت لك جلا قلنا فلاجة إيه النظام تبيسك متك عقل غير متك جرائم توضع متك حد جذب كوضع وحي مركز وحيالها قبل لها أيا هو هاي أما ضعيفة أما مش كمق وحكى لي تو مركب صوب حياة وأركي سايو موقنية الجنديال فربضن أيا ضلك كالسعودة الجنديال فربضن إيه تنبضن أدون كان ساعد إسكعة روح مرهدو كفو أما وضن كفو أما بربرو أدونكم أنت واحد هشيش لقوية هاي هلا شقيست الله ضنا يا جماعة الله قدنا يسلم سيدة ديال أنت أجندة الصعدة ماشاس
iyo inta hay-ado iyo inta dawlado iyo balaayo iyo waxa qarsoon iyo waxa ka jira wax xisaabin karta ma aha meelaha qaarkood oo dalka kamid ah waa lama galay waxa ka jira lama oga maxaa ka socda marka boqol ajenda isjiray boqol dana socda boqol muxuu ahaay faragelin baa socota waxa soo dhanna sida qaalibka waxay u socdaan wax weeye inaysan ummadan burburtay ayna mar laba soo kicin ajendayaasha qaar kamid ah waxa fulinaya kuwo dalka u dhashay oo la isticmaalaya oo ku daaban ummado kale ku daaban ayaa ajendayaasha fulinaya ama dhuuni qaatayaal ah ama fahamkiiyo fiqigu halka ka galay ama ay ka tustay inuu halkaasi wax ku heli karo ama kursi ku gaari karo marka way soo baxaysaa ama dareenka dadka ama way ku muuqanaysaa inuu yahay wadankani wadan loo tashaday waxa ka soo baxay sidoo kale oo iyadana soo baxday khaasatan qadiyadii muhaadarada waxa ku soo baxday in ay dacwadan sunnada ah ummadan ilaahay ku badbaadiyay tabaaraka wa tacaala ilaahay sababta uga dhigay qaar farabadan diinteedu hagaajisay dumarkii xijaabtay masaalix farabadan ummadan u keentay dacwada iyada ah cadawgeedu inuu badan yahayna oo marmarka qaarkood xataa laba cadow ay isu kaashanayaan ayadana way soo baxday مثلا محاضرة إن لتشوتشيو دجال كضدك كجلي محاضرة ولا تشوتشين كرا معنا وين ملا لكن وحصاب بحي وحاسوك عشانية دريقوين كقوة غلادة دريقوين كمرة والبوا كلا ربا دريقوين كعلماء كو أبتر صداي علماء علماء تقول تعبير التوفيق يا أخي تشتري وكل بدر وكم من محوها هاي أجنديال كانوا قرصون يوحك الأمودن كونا وكو غلادة أو حد جذب دنك كلاء أما دنك كلا تبع يكتشران مرك قليهاس دريقوي نوعاس يقوليو كون زنادقة الدين لا وياش الدين تأصلهم بالدنيا ما نضون يوحي لمن ومحوها دين تقاب فلسفية هنا وقت تخلصان اسكوديا إيوه قول الشيعة صومالي الشيعودي إيوه قولوا موجدي كعذب فوشو أو كرسي كرادي أو سياسيين موجدي كعذب كرسي بيكاد حركان مركزي اسكوديا أنا فلان أو كرسي كو قادان إيوه كوحدي ودن كنبي جليدي سقسيسي الشباب بل كورن انت هذي ميري سوي بعدين هذا الشباب يسوفي يسوي بعدين واي شباب يكوي زنادقه يسوي بعدين وكل جود اي دغال كو هيان على شارع محاضرadaas iyo dhicin waxa ka dhaxay aradu Sweden wax kale isugu yimaadaan ma jiro bimaana meesha waxa ka muuqda يعني مهمته وحويان دعوة السنة وسطية ومدة بربارينيس ومدة وحبريس محوها هي سحسن أي كل عدو للوذية مسألة معها وذات كان مسكين كمش زيارة كنت جماعة لكن مسألة وحوي ويكدر قصته يعني دجالك وحكومة جهية هي ملك الشيس أريد السنة وارين runtii ay soo baxdo ka aragteen social media dadka dagaalka ku jira markaad fiirisaan intaas ay ka koobayeen Sooma qaar badan oo siyaasiyiin Soomaaliya arag oo dagaalka qayb ka war siyaasi oo muxaadaro la dhigayo maxaa ka galay miyad garan kartaa adiga qolo shiica baa qayb ka oo kaliya yani wadaadadani maxaa shiicada ku dagaalamay qoladii aan radin jirnay ee muxuu ahaay zanaadiqada ahaa oo diinta inay dumiyaan ba iyagu u yimid ayaa qaybka waxa soo dhan marka waxay isu kaashanayaan xalashaan barnaamijkan laga hortago laakiin waxa ka maqanay kulligood wada seegay waxani haduu adduunyo iyo wax khaldan yahayna ma soconayo waaba ku fayaaba haduu wax saxsan yahayna fa amma zabadu
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض دقال كستا هدي لغو قادو وحي إلهي وتي صحن باسعن وحي خلدنا واختبوا لي هوري بانا لولا دقالمي دولة كواوين بالا دقالمي أدونك الله دقالسان هذا مع ذلك إلهي وحو تبارك وتعالى إذا كما هرتي كرتو استقام باللقوي وحاسوا بحي سيدو كلا أو دروستا كمدا إنترنت iyo saameynta uu ku leeyahay mujtamacaadka ama ha noqoto positive ahaan ama negative ahaan salban ijaban iyo waliba xeeladaha shaytaaniga isticmaalaan qoliyaha isticmaala muxuu ahaayay social media مثلا waxaad arkaysaa sida sahlan ee ruux intuu qol cid la fadhiisto oo wax iska soo duubo oo markaaba uu baraha bulshada ugu soo dhaxtuuri karayo si fudud sida fudud ee xataa sawirada fabraka iyo loogu sameyn karayo in la qaso ama la isu geegeeyo ama wax laga bedelo waxa taa kaalmeeyay wacyiga bulshada Soomaalida ah oo in badan oo kamid hooseeyo oo wixii meesha lagu soo duuro moodaya inuu run yahay wixii media laga arkay Facebook laga arkay sheekh muxuu ahaay WhatsApp ka lagu soo tuuray wariyaa ku soo tuuray midaal baan idin wiil yar waxa ka soo baxay social media leh sheekh umar baan isku qarxinayaa markaan isqarxiyo nabi maxamed baan u tagayaa ii soo duceeyay kulli dadku waxay yiraahdeen warwadaada inta lagu qarxin soo carabay wadadkii asxaabta wadad war waxan wax jira ma media soo wax u bubnay wax ma jira mar waxa la yiri hotelkii baa loogu dhacayo wadaadkii waa la cararayba telefoonku ugu soo dhacay war shay xageed joogta war ma lagu helay war ma dhaawac maad marka kadeedane ummadii waxa ka maqan war waxan meesha lagu soo daadinayo 99% wax jira ma ruux qol galay oo muxuu ahaay isa sawiray oo laga yaabo inaan la wehelinin xataa telefoonkiisa isku sawiray baa soo tuuray markaas waxa uu leeyahay balaya dhacday marka waxay naga maqan mabaadiidii tathabutka in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa in la iska hubiyo ha kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a abu nabi sallallahu alayhi wasallam ruuxa dambi been waxa ugu filan wuxuu maqlaba inuu ku sheekeeyo ama sheer gareeyo ama sii faafiyo raacna wax jira marka waa duruus marka waxaad arkaysaa hadda dadka sheer gareynaya commentiga bixinaya moogsoontihiin markii la doonayo barnaamij in la faafiyo hal ruuxa baa wuxuu soo xidhanayaa 100 shaati 100 magac buu wuxuu ku soo galayaa social media soo saam ula socota waa ruuxogow markaasuu commenti gareynaya magac buu commenti gareynaya hadana ku kala waa wareey war barnaamijkii ummadii baa ka hortimid baa la leeyahay war maxaa goor yimid hal ruux oo kolba shaati noo xidhay waa sida oday jirjirooli marka waxa jira iyo say wax u jiraan hadayna wacyigeeda yeelanin waxa dhacaysa marmarka qaar kood in god la inagu tuuro saas daraadeed social media iyo waxa ka socday iyo dhageysi rumaysigiisa aad uga taxadara tan ma kaliya ma laakiin mabda ahaanba waxay u baahan tahay inaan duruus ka yeelano waxa kamida fawdada masaa'isha sharciga cadama marjiciya umadani wax ay khasaarto diinteeda ugu khatarsan waxaad arkaysaa marar fara badan qadaayaadka social media lagaga hadlayaa waa masaa'il diini ah dadka ka hadlayana dad ehelo ama dad yaqaan ma dad xataa wuxuu bilaaban yihiin ma haddii aan muxuu ahay ayna diintu marjiciya lahayn oo inta taqaana aan loo daynin fasaad bayn baa idana ka dhacay Allah tabaaraka wa ta'ala quraan kariimka waa keenoo u sheegay arrimaha in loo celiyo dadka ulil amriga wa idha jaa'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا المسائل ماشي ذو علم وذن أهل كذا علنين شيطان بطراعي صار القرآن كله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شيطان بمركا كدوف صني مركا مسألة دينية قشوا هذه هلو تحذروا. وحق الله صباحي غضب مهمة إن أي أمضوا ولي أباهنتهي إن عقيدة يا عقل كذا بالله حريه حلمود إني أمضى أنت هذا بدن إني توحيدك قاري ما أنت عد مال أنت الله وحده اللي يلاهذو هاي صدقات شنين أنا جاي الحنو ومسكح ذا لقى قفلاي الدون كان الصوت فرماي بيني سنشرين بالمودي لكن واحد صوب حذي ولي إني تشيلان ضد وقفالا أو بهني لقى حرية مسكحها محايا لي ولي خزعبلات يا خرافات يا وحان شيرين بأمده ولي قار لقوا ما ويرنا يا الدين لوجا دقي مبادئ أساس كدين تما كل سنين أصل كدين تاني وحوي إله كل نعبد صوما أو لا إله إلا الله محيك شقيسا لا إله إلا الله معناه سو إله كل عبد ما لا إله إلا الله ألا كل هل عبد ما هذا أمدي قار كقصن تكور مبدئ دين تبع أساس كوها بالله يسوي كبلا بنيس حم علينا يا حيابه هو ركيمه لكن ما المهن واحد هذا لو مثال ذيك السوق هذا إسلام وادركتين إسلامي مدهرات هي اللي سوق صوماليا أو كويس أنو إلهي بان عابدنا أو نبي محمد بان عابدنا أو أبايا عابدنا أبايا متقنن أبايا فاضم ويوا واي تيبرك ربو أي حق أولياء هذا دمر كنا حق إذا عادي تشيرون يدي بحوها يكون توصل مركا وأمام الملأ رسول كان عابدنا وأبايا عابدنا عبادة وحي تهي وحلقة يا بإني سنفها السنين وحنسليه وصورة قلة إلي يصير هذا والروح أسد والروح إسكعامي وما لها وان عابدنا وان شعلها يروك وضع دعكت لكن تفسير كاسي وحسو كسو عنيني مركز علماء وحبرتي الشيخ يعضو أعضو نابط وحن واحدتك اللغو أبابيه واحد إن إذا تهينا مثال بنسينا هالمثال وإذا كان السوشيال ميديا هذا كتير وذات كان لي هذا معلم محمود يقول لي أنا أهل السنة الشيخ هو أهل السنة والجماعة لي ده قول هذا ده وحد كه لسان محواه السوشيال ميديا كتير طيب حرتي سيبوا قصانا يا قصوا شيء قصة اللي يبلغ عليه waxaa jira buu yiri waxaa jiray sheekh la yiraahdo Salman magaciisa leeyahay wuxuu ahaa wali samada fuula oo duulu ahaa jira markuu dhaqaaqayo duulida bilaabay wuxuu dhihi jiray ya Xanaan markaasuu ku duul dhaqaaqi jiray marka sida diyaarad muxuu ahay runwaygeeda ku kacayso ya Xanaan markaasuu kacaya خادمكيسي أما نين مريد كيساه أيا وحو كيري شيخو إنا كرعان ربا إنا كل $1 ربا مركزو شيخ وحو كيري قلبي قاقوا ضعيف إنا ذي الرعادة مكري كرتيدي اسكتشو مريد كي وكوات كيستي ما شيخ إنا كرعان ربا مركو كعلي وايو كوات كيستي أيو وحو كيري طيب inaad raacada salaamo rabtaan Soomaha markaan dhaqaaqo anigu aan dhaqaaqayo duulida bilaabay waxaan dhihi ya Xanaan aduguna waxaad tiraahdaa ya Salman kadibna isra ya duulida isra wadaadku muxuu leeyahay ya Xanaan muriidkuna muxuu leeyahay ya Salman waa magaciisa ولا دقاقي وذاتك وحور يا سلمان وحور يا حنان ودقاق مريدكينا
يا سلمان يا سلمان يا سلمان وكذا بدقاقي ولا وضع الدولي هودا سر مرلتشو وحلقة كور المري أيا مريدك وحاوي من إبليس شيطان بوي مركز وحكوري أيها الرجل كفرت بالله شيطان بقول هاي ورنيه إلهي واتكو قالوا ذي ميادا نقل وحى شيخا قوليه ومحوية يا حنان قوليه وانا مقع إلهي مقع يدي سكمده أدونا مقعي شيخ قاعد كل واقيسا سو قال متيد بكل يا كل هاي ها شيطان بكل هاي هودا سران الله مريا مركزو حكوير ورقالني ما تكون عضيه يا سلمان كنت تسكديس يا حنان ده مريدكي وركي وقاتي مركزو حب الله إنه يلحظه يا حنان يا حنان تيجي بوصرع يا حنان هدو يجي بوصرع شيخي بقبتي وادتشي دولكوجي هل كمركو شيخ قصة مرينا أرددي يسقي وإسلا قصلين ولا إسلا مرقام سفرتي يطولي تانك شيخي كسر نقي مريد كيبا ويدي وحكوي شيخو مقعاقا مركان قبصدين وان دولي مقع إلهي مركان قبصدين وان صورع وان دولي كرواي صوت معيت وحكوي مقع إلهي وحاكو الدولة ننكي إلهي يقانا عارف بالله ودرتشو طريقوي قاران ودادد ننكي عارف بالله با مقع إلهي كدولي كرا أدونا عارف بالله متهد وماذا قارين هذا إلهي قرني نين أنا دي قرني شيء ما دام أنا عارف هذه قرني شيء بعد مقع أيك كدولي كرتي إلهي سمع يسكون دولي كرتي مركاد مقع إلهي انتاد قبصتي كي شيخ قاعد ميل إسكتك تواديك صور عيب كوير بعد الكعبانته وروحي مناقب كي كقرا معه مناقب كي شعب قال جيلاني وحي كقرنا معه مناقب أويس وحي كقرنا معه ووداد هذا الشوجا وأمد هرشوجا وولي بقريه هيستا وإنت أصلا كراسة هذان ليسين النظام اسمي معي له وأهل السنة والجماعة وضيئوا سمارت إلهي ما كقول داريه روح مسلم وجاهل بها هذا وعقيدتي أصلا كأوكل شيء هيستا ألف السادين حتى أن أببرني ميال لقدر دعين كرام مقع إلهي نكوما أنفعيه كشيخ رواكو أنفعيه يا ميال لقدر دعين كرام وكو حصاب أحذي ومدي دي بحيستا ومدي قار كميدا دي بحيستا وانا أرين أباهان إن وحوين لقى قبط وهل قصة لكن قصة يكوي بدي السوشيال ميديا أنا واتكدر كي كرتان واحد دحيا عليه نوع صوميران النجي يمرك قوليها عن دريقويك محان اسكو هاي النوع وردريقويك كراس اسكو ما هاي النوع كراس تركلا كفرديا وعن طريقنا هين أننا هين بكراس تكفرديا كراس اسكو ما هاي حولنا اسكو ما هاي النوع أننا حولك كما قاعد نضدك إيجانا ملاه السيارة ديني كقاضي بالمالينا حول اسكو ما هاي النوع الدنيا كلنا اللي اسكو ما هي لكن مع اللي اسكو هي وحال اسكو هي ور الضومدن إلهي أبورتي كحرة خلقي كان كجوية إيه مه الضومدن إلهي توص وما هذه كرانة أنا جهنم كحرمان سمع سكون إنتاوا صوما ومدي أهل الكتاب الله كويد النبي كوده يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله والوداد بعض دوري إيه وداد بعض دونك يعرك كالهية إيه وداد بعض إذن إرساقي إيه وداد بعض واحد إنسان إيه وداد بعض شنة إذن قادي إيه وداد إنت دادك كديسان إلهي كل حرام إيه ما هي دادك إلهي ما هذه كرانين إن صومران مويه
qodobka asaasiga ee dariiqooyinka aan isku hayno qodobka waana kaas meesha ka muuqdo waxa la yaab leh oo aad loola yaaba qisada ibliis iyo shaydaan baa wuxuu leeyahay ninkan muriidka ah warwaad gaalowday ilaahay magaciisa qabso sheekhiina muxuu leeyahay war magaca ilaahay ka tago kayga qabso حتى ما إبليس با توحيد دام يا إبليس با وحو كله يورواد قالوا ذي مقع إلهي قبصو شيخ مقع عيسى كتك شيخ ينوحو له وركيك كإلهي كتك وكيك قبص حتى قصة قاب كوش هيجيو إبليس إنو عقيدة دامو وحسيدا وها اللي قصص كنوع عاصو كاليتا يعني حتى مدري مي ساس درادد ومدن وحوبة انت هاي إن لحوريو caqligeeda in la xoreeyo caqiidadeeda in la xoreeyo in laga xoreeyo khuraafaadka noocaas oo kala waxana lagu dagaalsan yahay waa inta waxana lagu dagaalsan yahay inta waay ummadan in laga daayo ilaahaygi abuurta lagu xiro ilaahay keligii barya ilaahay tala saarta ilaahay wax ka raadsada wadaadkani waa makhluuq aan waxba haysanin waan duulay wax jira ma aha samadaan dadka qabtay wax jira ma aha waxaasi khuraafaadkaasi ma jiraane war khalqiyo ilaahay caabuda diintii nabi maxamed taasay la timid adiyaantii samaawiga haydna kulli mabdaas ay leeyahay qodobkaan isku hayno waa qodobkaasi ma aha nafci iyo adduunyo iyo wax kale isku ma hayno waxaan dhihi lahaa marka isla munaasabadaasi qolyaha dariiqooyinka iyo dadka mabaadida iyo afkaarta lagu kala duwan yahayba dalka iyo deegaanku dadka waa ka dhaxeeya hadday suurtagal tahay inaynu wada fadhiisano inuu wada niqaashno oo inuu si degan u wada hadalno masaa'ishan isula baadhno fa marhaban bikum soo dhawaada hadda ka hor baan Nairobi munaadaro ku galay munaadarayna natiijadeedii waa la ogaa haddana waxaan leenahay waxba ha qayliina ha buuqina ha mudaharaadina dumarka iyo ciyaalka waxba ha kicinina waxaad samaysaa culimo ilayahay masaa'isha aad muranka ka qabtaan ama dooda ka qabtaan la isku riixriixini aayar inta la wada fadhiiso aan isla bogsiino diyaar baan u nahay haday suuroobi weydo oo arintaas idinka suuroobi weydo marka kadib naqdiya waxaan rumaysanahay ka hadla dadka muxuu ay ku baraarujiya laakiin aflagaadidii cayd iyo been abuuradka iska daaya diin ma noqoto sooma afcay tamay ninkiisu ku yaala diin ma noqoto been abuurad iyo waxaan jirin oo la sheegay xaruur iyo dumar la kiciyo diin ma noqoto ala aqal taqdiir usluub ilmi oo degan waxa aad ku haysataan iyo waxa nugu haysataan iyo waxa qabtaan ba u sheega laakiin si khaldan in umada wax loogu sheegay khalad waxaan rabaa inaan dul istaago qadiyada ku saabsan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo meel kaga dhicis oo soo noqnoqotay oo ay noqotay qadiyad ay iyadana dadka ku kiciyaan mar walbana soo laabata qadiyada iyada waxaan doonayaa inaan si gaaban ugu dhaado horeyna muxaadaro dheer baan uga galay oo aan doonayaa cidii doonaysa tafaasiisheeda inay hesho cilmiga ah inay u laabato waxaan si caawa ka dhahayaa kow horta waa la isku waafaqsan yahay qur'aan iyo sunno iyo ijmaaca ummaddu waxa waaye نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي عدي عيدة أما أفلقات ديسة أما ملك قرد عداي إنه كافر بالله يهي دلكي سنة بنايه بل إنه واجب يهي حتى علماء إن بدن وحي قبان عد عفين كرتين يسنجي حدودك لا حتى توبت بيكون عذاب إله لكن أيضا إنسان حتى توبت كل عين بعلم بدر ويسين مسألة ذا سوى مسألة مسلم روح مسلم وإلهي الرميسان إنه نبي محمد أقفاي وحسهلا معه إن لو قلت معه وحسهلا معه أما مسألة ذا لقاها الله ياي مسألة ذا ومسألة علمية أحاديث بدن باكوسو عرورتي أنس بن مالك حديث كيسا في الصحيحين باكويمي حديث عائشة عند أهل السنن باكويمي حديث كلثوم ابن مصطلق زينب بنت جحش سنن أبي داود كاكويمي حديث كحفصة كويل عند الشيخين حديث أبي سعيد الخدري باكويمي مسألة حديث برضو كويمي دين واحد
أحاديث فرح بدل مساجد تدي ماشي كنت لنا محاضرة كعدي هل حديث كريه ما حلقة بقى إني ودادد مركي مسألة كالله الحديث كأنس في صحيح البخاري كليه دول اشتاقان لكن مسألة الحديث بدل بيلاده إني استيعابان ومسألة حديث تقصى أرورتي كل أروريانا وكرجينية عدي دونيس حديث مسألة قصة أرورتي علماء الشرح ذي أو سيدان أنوغو مرين مرتي أيضا وان شعلان لها إن كتب توضل لقول لها وحكم ذا الإمام النووي وحكم ذا الحافظ ابن حجر العسقلاني وحكم ذا الإمام العيني وفتح الباري شرحي وحكم ذا شهاب الدين القسطلاني وشرحي سور بخاري شرحي وحكم ذا ابن الحجر الهيتمي فقيه شافعي لها تحفها لها صوم حاشية منهاج كسار لي في الصومالية العلماء أنت بدن بيقولون نقطه ابن حجر الهيتمي شرح الشمائل كيس بيسجل في تيسو كهالله وحدي لا مركا وغلط انت أصلا علماء أنا إن قاليسين وذات كان مسكين كأنا قال لي ما الله طب صعوتان مسألة علمي أنا ما هذا المسألة هذه اللي قالوا بيودين تلاقي قبح يوني محمد لوقف فيه إمام النووي كسر باللابا وابن حجر كسر حجية وقسطلاني كحجية ومناوي كحجية وابن حجر الهيتمي كحجية أو واحد ترى دين تواكبحين ومالنا والراحدة وحلا قبل كروات إن إذا أركين وأيضا طالع عنين كتب توضي مسألة وحي كيد هذا حديث تقاب كي أشرحين وعيب وحي كتب سيساء اطلاع إني طالع عشد إنه قامنته هداد أركتين ومدى كقريسين أيضا وعيب لبعض واحد مسألة وحوية مركي تهين ماجد مركي علمي أن لوجه ذي ماشي ذو توحى ليه لها إن بدنا إيجا كم إذا ولبا حقدونها محاضرة دي هورين مسألة كتشي دي مركي دقيستين قار فرب بدن با كان نقضي ولبا قار فرب بدن با انت مادين بعفي ويديستين وإلى هذا الشيخ المسامح مسألة سي خلط أنا لو قلت لي بحثي محاضرة مركا أرننا وحان وقاني مسألة إنه يتهي مسألة علماء كهالله إسلا بحثي قلبتي سوى حانكو عدي أحاديث تاسي سيدي كنت صور صحابة وشيغان أي مدن أفسرتي إنيسان مرنا بكرد لنين نبي جميل كقدع إنيسان كو أحيان لكن فهم كينا وياه سنة نقول فهم سنة هاي يدقن كيني مركن كم يزانه مركز يسوب بدلي كرتا إني تهاي ملك قدعته لكن دقن كودي يواجي يحلقي يمشودي عيب ما هين دقن صومالي بعد لا هذا يسان لكن وحديه لها دتك عامضة ويجوا أن وحباري كرين مسايش عن كبار عندك كرين شلي تدن قيني بسدرة ويل دل يرى بيتوبيا وحو يقصو دري واتساب كفرين يقصو فرين وحو شيخ أمالو ورت مرتد بات ديقاقون وابناي كو إلهينا تشنكو قليل ماي حرام بيتشنكو كات ورمحا دعا نبي قاد مالك قدعا ورمال إيسو شيخ حقين قدعا سوساسي أساس ماذا سيد فضط ما أنا كدودي إن قالها كلمة دودي إن أنا تشنّد قال إني كلمة دودي إن قال يطونا لكن سيد فضط عن المسألة دي وحنقول دري أحاديث كسارات وحنقول دري أقواش أهل العلم وحنقول ماشي هكرادي ويلكي وسود دقي يا وحد إمريسا إنه سوق قاري أو يلاهدو شيخ وسيد صانهاي إنه عصانهاي خير الله كسيو بل محوها وانفيرين يا أقواش أهل العلم لكن واحد بدن بقى كربي وحقيقة دم بيمرق دم بينا هذا خلط كي كلام شغل الجنة ما جاي كرسيده لكن في النهاية مركو قرحين هذا مسألة واحد خلطنتين مركو مسألة مسألة نوعاسة ضدك عامة هي طلبة العلم وحقيه لها مسائش نوعا وكلاها كتبت كو قرن أحاديث كوسا أرورت علمي هداد باري كرتان ولا ليالو بارا كباران دقا هدايدان باري كريننا كقابصدا وغيران أما إن عيتنتو أفلقاتو وحكنتو مسألة آدم أقول الله وذات قابي أتكدقيستي خليص بقيل كرتا نينك عاد عاي سنة قالي زيني سنة أساق الدنبا أقول مسألة أقادا
wadaadka la caayay la aflaagadeynaya lagu xadgudbahay naarta la gelinayo asaga damba ugu jirta ya ajir buu guranayaa dadka oo dhan haday caayaan adduunka oo dhan wada caayo asagu alxamdulillah bule ya dadku inay caaytamaan alxamdulillah ku dhimay laakiin ajir buu guranayaa adiga umba khasaaraya saas daraadeed caaydi aflaagaadada hal iska daayo masaladu mas'ala cilmi way xidi baar rabta ahlan wa sahlan diyaar waxaan caaws halka ma joogno diyaar waxaan u ahay meel kasta ninkii culimaa oo igala niqaashay masalada iyada goobtu joogo iyo xilliga soo sheego dariiqooyinka iyo wadaadada la midka masaladan dooda ka qabay hal sanad haysataan hal sano soo baara kadibna baxfigeeda meesha doontaan inagu ballamiya diyaar baan ama fawda la kiciyay iyo buuq la kiciyay inaan masaa'il cilmi uga tanaasulo dadkoo dhan haddaad soo kicisaan oo ummadoo dhan aad wada kicisaan oo ra'yigooda bedeshaan mas'ala aan diin ahaan ugu qaracsan ay ka tanaasuli maayo waa ku dhaganaanaya ilaa aan wax iga qanciyo diiniyan aan arko taana intaas ayaan kaga baxayaa inay soo noqnoqoto runtii ma aha laakiin waxa laga dhigtay wax lagu dangaado oo muxuu ahay awrka lagu kacsada laga dhigay haddaan ka bixi rabo oon gabagabayn rabno insha Allah taala barnaamijkii waqtiga inaga dhamaaday waxaa soo baxay sidoo kale ummadda Soomaaliyeed iyo deegaankeeda iyo dalkeedaasi baraarug baa jira runtii waa dal soo kacaya soona kabanaya laakiin waxa ugu badan ay haystaay waa laba mushkilo ama saddex mushkilad amaan darrada oo salka ku haysta ururkan al-shabaab qodobka labaad dabaqad siyaasiyiin ah oo nafciyiin ah dabaqad siyaasiyiin oo faasidiin ah oo nafciyiin ah dalka waxay u burburinayaan oo u baabi'inayaan kaliya inay iyagu nafci helaan inay kursi helaan inay xoolo helaan caqabaadka ugu adag ee dalka haystana waa siyaasiyiinta faasidiinta buu kamid anaga wuxuu ahay siyaasi waxba aniga igala ma jiro siyaasi aniga ma shaxaado xoolana kama raadsado haddaan u tagoon is aragnana naseexadii shariicadu ifartay baa naga dhaxaysa wala mid halkan jooga wala mid Soomaaliya jooga wala mid meel kale jooga hadduu jiro wadaad shaxaado ani shaxaado kuma tago shilina kama qaato laakiin runta loo sheegay qodob waxa weeye siyaasiga faasidka ah ee dalka darabulaha ku haysta waa qodob labaad waay qodobka saddexaad ee wadanka ku fadhiya waxa weeyaan wacyi darrada bulshada waay wacyiga bulshada hooseeya oo ninkii danaystaha ahaa uu isticmaalayo mar uu qabiyaalad ku kicinayo mar uu yaani wax kale ku abaabulayo iyagii uu danahooda ku burburinayo sidii horeba u dhacday dalkan in lagu burburiyo magac qabaa'il ba haddana waxa lagu burburinaya rag masaalix leh oo haddana danahooda wata laakiin shaatiyo kale u gashanay bulshadiina wacyigeeda ayaa hooseeya oo muxuu ahaay in badan oo kamid ah inay wax fahmaan baa waxaan ku gabagabaynayaa fawaa'ida inooga soo baxday waxa kamid ah aayadii quraanka waxay ahayd la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum xagee ku soo aragtay aayadaasi في قصة الإفك نبينا صلى الله عليه وسلم قريسي حاسسكي سمرك اللي بين أبوتي خاصة حاسكي عائشة دوري تون آيات بسودك تلقوا بريالي الله تبارك وتعالى آيات كاس باللو قوض وحق جري لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم شرها ليننا خير بيدين تحت ما قري النبي قال لقوا بين أبوتي oo bil kaamil ah qas iyo rafaad ku jira niya khayr ku jira si khayr ugu jira oo imsa khayr ka dhashay sax shar waa ku jira laakiin khayrka ka dhashay waa ka badan soo saas ma sidaas daraadeed in muhaadaro la istaajiyo oo muhaadaro istaagtay nafciga nooga dhashay baa nooga badan وكوي هرت محاضرتي الحمد لله وان شيدينايو جمهور انتي كبدن با دغيسيتay oo telefishinka ka baxay Sooma isbatiiro isbagtiyoodu ma aha guri la caabudo ma aha
garoon uu leesiri dadkay wada qaadi kartaaba iyadii hadii qas galayna alxamdulillah meel ka balaaran bay ka baxay waa qodobka labaad waxa weeye ilaahay fadligii waxa inay muuqatay in dadka nagu tuhunsan inaan dhiiga ummadda daadinteeda fatwoonayno inay iyagu caruurtii iyo dumarkii ay wajiga hore keeneen ayaguna gadaal ka fadhiisteen ciyaalkii iyo dumarkiina soo hormariyeen qas iyo rabshado inay dhacaana ku talagaleen annaguna aan uga tanaasulnay inaan baajinno ruux muslima inay dhibaato gaadho waxaa iyadana ahayd faa'iido ahayd runtii oo ilaahay qadartiisaba ahayd muxaadarada markii loo ballansanaa galabtii axadda ahayd u fiirsada haddaan la baajin lahayn roob baa baajin lahaa duhurka wax yar kadib roobkii bilowday ilaa fiidkii buu daayay marka waxaan is idhi walaa muxaadarada haddii aan baajin lahayn oo roob ku baajin lahaa wadaadadu waxay dhihi lahayn roobkii samadii baan ku fasaxnay samadii baan ku soo fasaxno annagaa kala tuuray bay dhihi lahayn markaasaa laga yaabaa inay khalad kale sii keli lahayn marka meeshaa waxaa ka soo baxay man taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran minhu shay haddaad ilaahay dartii uga tanaasusood uga tagto wax ka fiican bu ilahay buu ugu bedelaa nabigaa sidaa yidhi sal alla alay wasalam soo maaritaan marka intaasi waa khulaasadii safartii iyo mulaaxadaadkeedii iyo maxaa ka dhashay muhiimadii aan u tagnayna ilaahay fadligii waa noo xasishay warbixinteedoo kaamil oo tafaasiil oo dhammaystiranna berri galab baa ganacsatada loo baxan soo berri maahay maya sabtida galabtii baa loo ballansan yahay odayaashii raacay meeshan ka tegay oo xaaji abuukar gudoomiye ku-xigeenkii masaajidkeenna xaaji cabdullaahi caray fadhiyan marin waa odayaashii aan israacnay cabdinaasir cabdi muxuu ahay isagana sidoo kale iyo cabdirasaaq muxuu cabdiqaadir sheekh muumin iyo gabadh iyadan shukri la yidhaahdo lixdaasaan ahayn ilaahay fadligii muhiimadii aan u tagnay si fiican bay noogu soo dhacday ammaanadiina waa gudanay ilaahay naga aqbalo intii bixisayna ilaahay ka aqbalo ilaahayna tabaaraka wa tacaala ummad fara badan buu runtii dhibaatadii haysatay wax badan muxuu ahay kaga fududeeyey intay dooniba ha dhannaato marka intaasi ayaan doonaya caawa inaan kusoo gabagabeeyo muxaadaradii ciwaankeedu ahaa safartii gurmadka iyo faa'iidooyinkeeda iyo duruusta ka dhashay iyo dilaalaadkeeda hada billahi tawfiiq wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi